Doon shidaal qodis ah ayaa ku degtay gacanka Suez, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 ka mid ah shaqaalihii doonta, halka 4 kalena aan la ogeyn halka ay ku dambeeyaan. Dowladda Masar ayaa Arbacadii sheegtay in 22 qof ay ku dhaawacmeen kadib markii markabka Adam Marina 12 uu ku degay habeen hore deegaanka Jabal Al Zayed ee gacanka Suez. Doontan ayaa markii ay rogmatay loo waday goob cusub, siday ku warantay warbaahinta Masar. Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Masar, oo ay weheliyaan wasiirka shaqada Maxamed Jibran iyo guddoomiyaha badda cas Amir Xanafi, ayaa booqday dadkii dhaawaca ka soo gaaray shilka. Xanafi ayaa sheegay in maraakiib ka tirsan ciidamada badda Masar ay ku biiraan dadaallada baadigoobka iyo badbaadinta shaqaalaha la la'yahay. Jabal Al Sayed ayaa ah goob weyn oo saliidda Masar laga soo saaro, qiyaastiina 300 kiiloomitir ama 186 mayl koonfur ka xigta kanaalka Suez.